Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga caasimadda oo lagu qabtay taliska qaybta guud ee booliska ee gobolka Banaadir. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga gudaha, gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyayaasha ciidanka iyo khubaro amni ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta iyo kamaradhelinta qorshaha sugidda amniga dalka gaar ahaan amniga caasimadda Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa warbixin iyo talooyin ka dhageystay khubarada loo xilsaaray ururinta xogaha amniga ee ay soo gudbiyaan laamaha amniga. Waxa uu ku ammaanay hay'adaha amniga dadaalka ballaaran ee ay ugu jiraan badbaadinta nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaruhu. Hay'adaha amniga iyo Ra'iisul Wasaaruhu kula dardaarmay in ay laba jibaaraan dadaalada ay ugu jiraan xasilinta caasimadda si ummadda Soomaaliyeed ay u helaan nabad buuxda. shirkan runtii wuxuu ahaa mid ay ka soo wada qayb galeen dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha ammaanka oo ay ugu horeeyeen wasaaradda amniga, taliska ciidanka booliska ee gobolka Banaadir, maamulka gobolka Banaadir uu hogaaminayay duqa magaalada Muqdisho iyo madax ka socotay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha. Ra'iisul Wasaarahana runtii shirkan wuxuu u shir gudoominayay sidii loo dardargelin lahaa amniga caasimaddan magaalada Muqdisho, iyadoo aanu ognahay maalmihii u dambeeyay in ay socotay barnaamij la dhaxgelinayay shacabka iyo qaybaha kala gedisan laamaha amniga, iyadoona nambarka 991 uu Ra'iisul Wasaaraha muddooyinka ugu dambeeyayba xoogga saarayay sidii ay shacabku ula soo xiriiri lahaayeen qaybaha amniga, isla markaana ugu wargelin lahaayeen wax walba ay u arkaan in uu amni darro ku yahay magaaladan caasimadda ee Muqdisho, iyadoona qaybaha kala gedisan ee amniga ay u suura gashay in falal fara badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortagaan iyagoo shacabka kaashanaya. runtii shirkan wuxuu ahaa mid lagu sii dardargelinayay qaybahaasi kala gedisan. Ra'iisul Wasaarahana uu u gol lahaa sidii laamaha amniga, maamulka gobolka Banaadir iyo shacabkaba ay wada shaqeyn dhab ah oo buuxda ay u wada yeelan lahaayeen.